waxaa ku nool gurigaani asaga iyo cunugiisa oo kaliya subax kasta waxa uu aadaa goobtiisa shaqada waxa uu hore gacanta u sii qabtaa cunugiisa yar waxa uu ka shaqeeyaa goob ganacsi oo maqaaxi ah waxa uuna ka mid yahay ilaalada qaaska ah ee goobtaasi waxa uuna taagan yahay halkaa ilaa uu maalinka gobolka kaga dhaco waa kan cunugii yaraa oo ka soo laabtay madarasada waxa uuna si kadis ah waddada ugu arkay aabbihii حب لا ما لا حدود بابا حبيبي انت يا علاج وطبيبي تدري حبك والله من هالقلب نابع انت كدب waxa uu gacanta ka qabtay cunugiisii waxa ayna aadeen xagga ay gurigoodii waxa uu ku ridaa maalin walba gasacaani qaybo ka mid ah lacagaha uu siiyay aabbihii si uu u aruuriyo xogaa lacag ah لا تغيب عنا بابا ولا عليك أمر لنا بدونك لا لا ما يسوى العمر لا تغيب عنا aabaha ayaa diyaariyay mar walba cuntada waxa ayna si wada jir ugu cunaan miiska cuntada لا لا ما يسوى العمر صدق يا بابا حنا من دونك غلابة وعلى قولي ببصم ب10 أصابع يا تاج راسي يا أبويا وكل ناسي وصفك أنا بكلمة انت رايا يا أبويا نور دربي يا الغلا يحفظك ربي انت رحمة بدونك أنا أعيش ضايع maalinkii labaad waxa uu joogaa goobtiisii shaqada waxa uu si kadisa ishiisa ay ku qabatay cunto loo diyaarinayo mid ka mid ah macaamiisha maqaaxida taasi oo aad qaali u ah laakiin waxaa la joogay wakhtigii uu ka soo laabanayay madrasada wiilkii yaraa waxa uu si kadisa ku arkay aabbihii oo gudaha maqaaxida fiirinayo uu isqariyey si uu u ogaado waxa uu aabbihii gudaha ka fiirinayo waxa uu ka soo wareegay dhanka kale ee maqaaxida si uu u ogaado waxa uu aabbihii ka fiirinayo gudaha maqaaxida waxa ay shiisa qabatay gabar yar iyo aabbaheed oo ku qadaynayaan gudaha maqaaxida oo cunayaan cunto aad qaali u ah goortii uu u laabtay guriga waxa uu si toos u abaaray goobtii uu ku ridi jiray lacagaha laakiin markaani waxa uu ku riday intii uu awal ku ridi jiray in ka badan maalinkii labaad waa ay baxeen wiilkii yaraa iyo aabbihii si wada jir ah laakiin saacado kadib waxaa soo laabtay aabbihii oo wada cunto aad qaali u ah taasi oo uu ugu talagalay in uu u diyaariyo wiilkiisa si uu ugu dhigo kadis لا تغيب عنا بابا ولا عليك أمر لنا بدونك لا لا ما goortii uu ka soo laabtay madrasada cunugii yaraa si toos ah waxa uu u galay goob ganacsi oo maqaaxi ah لنا بدونك لا لا ما يسوى العمر صدق waxa uuna maqaaxida la imaaday dhammaan lacagihii uu aruurin jiray وعلى قولي ببصم ب10 أصابع
waxa uuna dalbaday in loo soo diyaariyo isla cuntadii uu maalintii fiirinaya aabihiis. waxaana socota diyaarinta cuntadii uu dalbaday. waxaa loo keenay cuntadii uu dalbaday oo bac ku jirto. waxa uu ku ritay boortadiisii waxa uuna la aaday guriga. markii la gaaray waqtigii cashada, aabbihii ayaa waxa uu ku yidhi cunugiisii, waxaan ku hayaa wiilkaygiiyo kadis. تدري يا ابويا انت لي كل الوجود انا goortii oo arkay cuntada aad buu u farxay cunugii yaraa. ما لا حدود تدري يا ابويا انت لي كل الوجود انا احبك حب لا ما لا حدود. waxa uu u sheegay aabbihii asna sidoo kale in uu hayo kadis. حبيبي تدري حبك والله من هالقلب نابع يا تاج راسي يا ابويا وكل waxa uu soo qabtay boorsadii waxa uuna ka soo bixiyey cunto. waa uu su'aalay aabbihii cunugiisii waxa uuna weydiiyey sidii uu ku helay cuntadaani. waxa uu sheegay cunugii yaraa aabbihii in uu maalin kasta lacag meel ku aruuri jiray si ay hal maalin ama hal waqti ay wax ugu wada cunaan. waa uu ku farxay aabbihii ficilka wanaagsan uu sameeyey wiilkiisa. laabta ayuuna geliyey laab ay ku dheehan tahay farxad iyo kalgacayl iyo naxariis. waa ayna dabaaldegeen intaa kadib.